haddii la yidhaahdo SYL taariikhdeeda ka sheekee waqti dheer bay qaadanaysaa. ma aha mid ku soo koobi karta fadhiga aqalka dhan fadhino waxa weeye taariikh sarooyin soo socotay ilaa laga soo gaaro xornimo Soomaaliyeed iyo dawlad Soomaaliyeed. lagu dad waxaan ahay xornimada baan ahayn xornimada baan noo caday kii dhinta waa la duubahayay kii hadda sakaraadana hadda ilaahay baa ka kicinayay waxaan oo eegna ma jirin isbitaaladana lama geyn jirin wax isbitaal la geyn jiray ma jirto wax loo nixi jiray ma jirto. muraadkoodu wax kala ma hayna dadku ha arko wax xun in la diidi karo waxa xun in dhibaato loo mari karo diideed in lagu dhiman karo. annagu lacag ma lahayn oo cilmi ma lahayn oo wax dawladda caawiya ma jiro idinku lacag way idinka baatay barfasarooda noqotay caalimka haddana caalimka annagu caalimna leynaya maya caalim anu wax weydiisan jirin ma jirin haddii lacagtii la eeday oo tacliintii la eeday oo haddii la kooyo caalimkii loo heliya la eeday oo dhan loo socda la aqoon waayey haddii adigu waa ka tahay كان واقيا نكون الدنيا زين جديد الله يودي واقيا نكون الدنيا زين جديد الله يودي. waxay ku bilaabatay SYL sababtay ku bilaabatay waxaa ka mid ahaa waddanka markii horeeta isticmaar baa joogay talyaani ah isticmaarkaasoo muddo 50 sano ah waddanka haystay isticmaarkaasoo u diiday Soomaalida xorriyatul qowl u diiday isticmaarkaasoo dadka Soomaalida aan ogolayn inay shir suubiyaan ama isu yimaadaan. apartheid baa jiray ka soconaanta nin caddaana hadduu kaa hor yimaado ama naag caddaana hadday kaa hor timaado saas fajisada u salaamaysaa waan istaagaysaa haddaadan salaamin waa lagu qabanayaa stationka lagu geenayaa waa lagu karbaashaya waxa lagu suuq ahaan baa lagu geenaya dadka meesha suuqa baabuurada laga daaro dadka ka koraan inta la geeyaa lagu karbaashaya qofka. habeenkii 15 May 1943 meel qol oo yar ayaan ku shirnay qol yar markaas ragga isugu yimid meesha tan isugu yimid waxay ahaayeen rag mutacalimiin xoogaa cilmi leh. shirkaas yaasiin xaaji cusmaan wuxuu ka soo jeediyey in aan ingiriiska warsanno xisbi ma aha siyaasi ah maxaa yeelay ingiriiska waqtigaas wuxuu ahaa dagaalku ku jiray security ka buu hayay marka siyaasan galaynaa lama oran karin markaas wuxuu yidhi aan ka dhigno xisbi ah dhalinyaro wax asaasi oo siyaasi ah kuma jirin ee waxay ahayd bal horta dhalinyaradu ha isbarato meel ha isugu timaado waxay iska ku kala bedeshaan marka haddii la kala maqan yahay wax dhisma sheegi karo laakiin haddii la isu yimaado waxba dhalan karaya iyadiiba waxay ku dhalatay si ay u socotay in la yiraahdo warnimayo waxaan qabsano dadku waa bislaayeen
soomaalidu waa bislaayeen waxay u bislaayeen inay xorriye qaataan laakiin waxay rabeen dad yacni dhacsiiya sida xorriyada loo qaadanhayo iyo sida maxaa la yidhaahdaa loo halgamahayo iyo sida maxaa la yidhaahdaa adduunka loogu faafinhayo sharafta soomaalidu leedahay anakay noqotay dhallinyaradaydii yay noqotay inaan intaas oo dhan u faafino dadkii yaasiin sidii xaaji maxamed xuseen ii sheegay xiriir buu nala sameeyey xiriir buu nala sameeyey wuxuu muddo intii ah nagu geesinimo geliyay inaan waxna akrino idaacaadkana aan dhegaysano ninkii carabi yaqaana idaacaadka carabiga u dhegaysto ninkii yaqaana talyaaniga uu kan talyaaniga dhegaysto حجر هذه عربي بي سي عربي لكن واحد دغيسن جير اوديال با دغيسن جير كليه سي برت انجليزي لغه دنيكن يقان وا دغيسن جير يا لكن قف راجي هي السبع هل راجي يالي dadkii baa horta banaadeg baa horta waa la walaalooyay oo qofka hadda markii la qoraxayo waxa lagu dhaarinayaa Soomaali yahay baa lagu dhaarinayaa shashi maraqa qaadaya bishii hadda xisaasin qofkaas waa safraya xamaru ka baxaya magaalada u ku xigta iyo laga meesha u joogta ha aw ka meesha laga waa ka qofku waa tagaya saddex afar qofkaas wuxuu soconayaa halka haduu ka taga meesha Soomaaliya ugu dambaysa ilaa afmadow kiisa ka yimaado u tagaya ilaa Soomaaliya u tagaya shaashin bixin maayo waa yaa beeyada gees ilaa gees waxa safarka dadku isdhex marayo oo qof waliba saqayr hadin laga daawaranayo meesha uu ku dagahayo wixii baa inta la jeclaystay oo la walaaloobay oo hadii la ku isu dano noqday baa aad iyo aad maaragtay isku xibayo waxa walaalay waa midaaweeya wax kale ma waxaan halgamayn iyo waxaan calan jeclayn ma aanan qabin meel baan ka wada dagaalamayay aqli baa nagu wada jiray in calankaa un la suro baa dantayadu ahayd nin la qasbi jiray ma jiro nin walba niyadiisa inuu ku socday iyo calan hel markay sii socotaba siyaasadda lugta gashanaysa ilaa ay gaartay 1947 markii Yaasiin dhimanay meel Soomaali jirto ayaan ka furayn ma jirin soomaalidii oo shanta meel loo kala qaybinayay NFD xoog buu uga furnaa dhinacan Ugandani waxay xisaabsaneed Soomaaliya markaas waxa laga xukumayay xamar baa laga xukumayay dhinacan waqooyi hadda waa ka furnaa qadan oo ka go'an dalkeena Soomaalidu joogto uga furnaa magaceedii Tanzania Soomaali joogto Arusha oo ku badneed buu uga furnaa England Soomaalidu joogto uga furnaa marka Soomaalidu banaanka hadalka saas ugu faafo haweenka Soomaaliyeed qayb libaaxa ay ka soo qaatay markii ururka la sameeyay iyo leegada intaba iyo halgankii gobonnimo doonka qayb weyn bay ka qaatay dagaalkii dhagax tuur way ka qayb galeen waxay ka qayb galeen oo kaleeto dagaalkii 48 talyaaniga lagula diriray waa ka qayb galeen
dahabkoodii kuwaa gaday dahabkii iska daa wax kale dahabkoodii gaday dagaalkii ka dhacay Kismaayo jimcay ahayd bishuna kow bay ahayd dagaalka hadduu ka dhacay hujuum baa nala ku soo qaaday halkaasaa nala ku laayay annana halkaasaan wax ku laynay dabadeedna waa nala xirxiray biyo maanyaa nala siiyey meeshiiba aad naloo garaacay aad baa naloo dilay wixii leegada ahaa waxaan xirrayn 2 sano baan xirrayn 2 sano qaarka yaga waa la waday Maymundaa loo dhigay cimriga yagaa nala ku xakumay dagaalkaasna waxaa u badnaa haween anigu sabtidii dadkii la keenay baan ahaa aniga gabar dhofaan Masciid gabar la dhaho anigu gabar baan ku dhalay gabareed Brima Agoosta la dhaha gabar Aamintoy la dhaho Aamintoyna iyo gabar bay ku dhashay way dhimatay gabadhi kaarjira ku dhamatay intii hadda tayda baa ka nool Brima Agoosta ka nool xornimadu haddaan loo dhimanin lama gaaro haddaan la isu loo rafaadin lama gaaro haddaan la isu misaafirinin lama gaaro intaba raalli baan ku ahayn dagaal ha bilaabo oo daar ha nagu qafilo dab iyo baaruud ha nagu daaro rag iyo dumar dabaadiga naga haraa dowladnimada heli dahaba ina muuse daarigaada iyo xumaan xamaali ha naga dhigo xaar ha nagu daldalo xaakimada leegaa xumay sida xujuri xorriyadiin loo rafaado xaqiiqan noqon kama xanaaqayn caalka talyaaniga وما هذا اللي ما انتبه دنيدا كم بيننا وما هذا اللي ما انتبه دنيدا كم بيننا ما انتهينيو ما بيحب بنان ما بيحب بنان وليه أنقرني وحكمت أهوس كعبه هل جنكي قبل نمضون كإن كفوزني وحكمت إن صومالي دي أي محالي هذا نقطة ضد بالسل ودون هي وحيروا عن معنا هاي ما هنا ودون هي إني محالي هذا ودن كودي حرية وحكمت إن مركي دمبهتو قرن aan dhisnay qarankaasoo bandiirad loo yeelay oo bandiiro Soomaaliya lahaan jirin loo yeelay qarankaasoo adduunkii laga ictiraafay inaan ka mid noqonnay member oo ummadaha midoobay aan ka mid noqonnay dhibaato adag baan soo maray xusbiga ka dhibaato adag buu soo maray idanka ilaahay dhib kastuu soo maray wuu gaaray marinkii uu rabay waa u gaaray alxamdulilah shukr maantana waad ogtihiin wax laga haya ma jiraan la isu masaafiriyo wixii la isu dilay wixii la isu xiray wixii candabaqa la isu gashay calankii ahaa silaca lagu keenay ilaahayna noo sakhiray markii dambe dhibaatana aan u maray maantay meel ku sugan yahay wax og iyo wax ka warqaba midna ma jirto marka ugu horeysa waxaan sheegayaa in aan ka xunnahay haddaan nahay raggii asaasiyiintii soo halgamay waxaan ka xunnahay waxaa weeye maantay inaan arkayno dhibaatada Soomaalida ay ku jirto dhibaatadaasoo waddankeedii maantay sharaftii iyo wanaaggii iyo wuxuu lahaa ay maantay hoos u dhacday يعني هوري اسكو كيمي waxa ay moodo wadankuba inuu wareegayo oo wala oran doono si Falastiin to kale Soomaaliya jirtay hadda la daba qaban aniga 10 sano ka bacdi ninka ka saaxiibka iyo jaarka iyo cunahayo mas'uulka iga aho ya hadii 10 sano ka bacdi ma hayo aniga wadanka inuu wareegayo waa in loo soo noqdo maxaa la yiraahdaa barnaamijkii leegada oo ahaa in
إلا الراديو اسكو منان صومالي أو دن اسكو منان محالة هذا ولا النمو استعلان إلا صول نقضه وحي تغين اللي إلو فراه لغا قادو يا كنت لين هيا إلهينا كبر يا هيا إن قلبي قد إسو تشيديو maanta Soomaaliya waxay ku sii socotaa haawiye dabayl hal booraan bay ka dhacaysaa ragga hadda joogan aniga sida ii muuqanaysa oo darajada u dudahay oo niman kale u riixaya darajada Soomaaliya inay wax ka qabtaan sahal ma ahaanayso marka ama banaan ha joogo ama gudaha ku jira ninkii in yar oo masayrin ku jira ama qeyrahay ku jirto in yar oo xumaan ciideed ninkay ku jirto maanta la banaan